hadaa u baahan tahay inaad noqotid youtuber filimada khulaaseeya oo janaalkiisa guuleystay waa inaad taqaan sida copyright-ka la iskaga ilaaliyo iyo meelaha filimada laga soo dejiyo waana sababta kaa dhigaysa janaalkaaga inuu guuleysto. Markii laga hadlayo sirta copyright-ka lagu badbaaday inaad fahanto waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato bilooyin ama fahmi weyso sida copyright-ka looga badbaado, sidaas darteedna ugu niyad jabto YouTube janaalkaaga. Aniga markaa bilowga ah waxaa sameeyay muuqaal filim khulaaseyn waxayna igu qaadatay waqti dheer markaa dhameeyay ee aan YouTube ka dhigay. Copyright ayaa lagu dhuftay inaan fahmo sirta copyright-ka looga badbaado ayaa waqti dheer igu qaadatay waana waayay qof sirtaas fahansan ilaa aan go'aansaday inaan si xeel dheer leh u baaqo sida YouTube ku shaqeeyo gaar ahaan copyright-ka. Halka aan hadda aniga ku fahmay sirta copyright-ka muddo kooban waana sababta aniga YouTube-ka ku jiro 2 isbuuc ay igu daawadeen Confuse. Waxaa ku diyaariyay hab ku tusinaya inaad khulaasaysid filimada ayagoo wax copyright laga saarin. Aniga waxaan ku siinaa macluumaad lagu iibiyo lacag si bilaash ah, adigana ima quuqaysid inaad hadafkaaga gaaro oo ah subscribe. Kaliya subscribe, like iyo share isku taabo sida aan macluumaad intaan ka qiimo badan kugu soo gudbiyay janaalka. Filim khulaaseynta waa inaan filim 3 saac soconaya inaan ku soo koobto 10 ilaa 15 daqiiqo adigoo filimka nuxurkiisa ka soo qaadanayo oo codeynayo. Filimka oo khulaasayso waxaa u baahan tahay inaad taqaan 5 qodob: halka filimka laga soo dejinayo, fahanka filimka, scriptiga, codka, editka. Si uu muuqaalka noogu dheeraan gudaha ayaa u galeena. Haddaad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe iyo like noo saar si aan hadafkeena u gaarno oo ah 1000 subscribe insha Allah. Khulaasada filimada 2 si ayaa lagu khulaaseyn karaa waana mobile iyo laptop. Maadaama ay dadka wala haystaan mobile ee hadda subscribe iyo like ay ugu saarin janaalka. Hadda weli janaalka subscribe iyo like saarin noo saar. Waxaan ku sameynaynaa khulaasada mobile labada app ee aad filimka u adeegsanaysid si aad u soo dejisid oo on stream iyo Player. Waxaana idin dhiga qaybta hoose ee description-ka muuqaalka. Marka hore soo furo app-ka soo dejisay, kadibna qaybta searching-ka ku qor filimka aad rabto magaciisa, kadibna taabo filimka oo download leh, kadibna waxaa ku dhufanay quality-ga aad rabto filimka. Waad aragtaa app-ka kale ayuu ku soo degaa waana ku soo dhigay qaybta hoose ee description-ka. Si aad filimka script ugu qorto waxaa sameyn kartaa 2 si inaad filimka soo fiirsato oo fahanto adiga oo sidaas script ugu qorto. Haddaad rabtid YouTube-ka ayaa filimka ka soo fiirsanay asagoo subtitle af Soomaali ah, wixii qalad ahna waad ka saxee. Ama filimada qaar ayaa khulaasadooda description-ka la dhigaa, kuwaas ayaa ka soo qaadanay oo af Soomaali ayaa ka dhigay. Hadda waxaa u gudbaynaa step-keena ugu dambeeyay oo ah sida aad u dhiidgaraysan lahayd oo aad copyright-ka iskaga qaybi lahayd si aad adiga xuquuqda muuqaalka u lahaatid. Waxaa soo furtaa application-ka CapCut, muuqaalka soo geli, kadibna codka aad filimka u soo diyaarsatay soo geli. Intaas markaa samaysid editka uu fudud yahay. Filmaanta meesha aad ka hadlaysay iyo codka ayaa isku aadinay. Sirta copyright-ka aad uga badbaadi lahayd cid kuu sheegaysa ma laha, waana sababta youtuberada kuugu sheegeen adiga. Si aad muuqaalka xuquuqdiisa adiga u lahaatid waa in angalkiiba ama qaybtiiba aad ka soo qaadataa 5 ilaa 7 sekin adigoo faahfaahintaada kor saaranayo. Haddii faahfaahintaada dheer tahay waad koobiyen kartaa muuqaalka, waa soo laba celi kartaa sidaa camal. Waa sirta copyright-ka looga badbaado waana in angal kasta ka soo qaadataa 5 ilaa 7 sekin. Qodobada ugu muhiimsan ee inaad taqaan ee tahay aan hadda muuqaalka ku sheegnay waana 5 qodob: halka filimka aad ka soo dejisan lahayd, faahfaahinta filimka oo ah inaad filimka soo fahanto, scriptiga waxaa fahantay inaad qortid, codka inaad filimka soo codeysid, editka oo ah meesha ugu muhiimsan oo sirta copyright-ka loo iskaga reebo. Muuqaalka hadduu ku cajabay fadlan la wadaag asxaabtaada, hanaga iloowin like iyo subscribe-ka inaad noo saartid. Haddaa wax naga faa'iiday commentiga waxaa nagu soo qortaa wax nagu dhiirigelinayo. Waadna ku mahadsantahay daawashada.